xildhibaanada ka soo jeeda degmada iyo gobolkaba ee ku soo biiray xisbiga wadani iyo inantii halkan ka hadlaysay inta waxaan leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada xisbiguna waa xisbigiinii waxaan yar ka odhanayaa magaalada Boorame amba gobolka Awdal aqoon buu caan ku ahaa jaamacad buu caan ku ahaa ururinta Soomaaliland buu caan ku ahaa waxaan u malaynayaa dadkayga ka soo jeeda beelaha dhexe ayaa tafaraaruq iyo kala kaxaynta caan ku ahayn waxaan u malaynayaa idinku laagso ururinta iyo inaad gogasha fidisaan iyo inaad dadka isku soo daweysaan iyo inaad caafimaad ka shaqaysaan ayaydu caan ku ahaydeen siyaasadda wax kala kaxaysa ee isku dhaabad sheegata ee isku cudud sheegata waa siyaasaddii kulmiye ma aha tii wadani siyaasadda wadani waa ururin waa wadajir waa xasilin waxa weeji in la isku talo midna waxaan idin sheegayaa musharaxiinta maanta inoo tartamaya waa wadaynimadeennii waa reer Somaliland waa Cabdiraxmaan waa Muuse waa Faysal waxa aynu ku kala dooranaynaa talowiyaad maatida iyo caruurta ku ururin karaya kaase waxa aynu faanaynu Cabdiraxmaan yahay hadda ogaada abtirsiina waan wadaagnaa ninka kale taariikhna waan wadaagnaa laakiinse waxaan isleeyahay hawshii shalay la soo kala galay ee aynu reer Awdal markaa tihiin taariikh ahaan ku kala gedisnayn hadda waa astayadii Muuse uu ku wanaagsanaa laakiinse maanta marka ictiraaf la doonayo waxaan isleeyahay Cabdiraxmaan baa ku wanaagsan waayo nin walba maalintiisa iyo halkuu ku habboon yahay in loo daayo waa daruuri sidaa daraaddeed waxaan beelaha iyagaa dhexe ku dhex jira qolo aanu yaro xamano Cabdiraxmaan ka soo jeedaanoo faan badan reer Awdal maanta waxa halkan aan ka yara fahmay faankii Boorame inuu show yahay qoladii halkii ka hadlaysay intaasna waa iga kaftan wassalaamu calaykum